diidmadan ayaa imaanaysa xilli madaxweyne Shariif oo magacaabay guddi wada hadal la galaya maamulka Somaliland oo iyagu kal hore soo magacaabay xubnihii dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ula xajoon lahaa guddiga uu magacaabay Sheekh Shariif oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxaana ka dhex muuqda laba mas'uul oo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland haddaba mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo State of Somalia oo maanta shir jiraa'id ku qabtay hoteelka Hilton ee magaalada Nairobi ayaa ka biyadiiday xubnaha uu magacaabay madaxweyne Shariif haddii aan dul maro waxa weeye Khaatumo State of Somalia haddeerto waxay jirtaa 3 bilood shir baana loo fadhiyaa meeshii lagu aasaasay oo aad wada taqaaniin oo taariikhiga ahayd halganka Soomaaliyeed oo gobondoonkaana uu ka bilowday waa Taleex waa shir trimesteraal ah waa lagu heshiiyay waagii hore oo la dhisay Khaatumo in shirkaas 3 bilood bal la qabto mar maxaa inoo qabsoomay maxaan inoo qabsoomin maxaa inoo haboon maxaa isbedelay maxaa xumaaday maxaa la saxayaa maxaynu horay ugu talaabsanaynaa durbada caayid baa laga fidiyo waxa leeyaan way ishayaan ma jiraan waa shir caadi ah trimesteraal ah oo maamulku uu gelayo every 3 months ama 3 biloodba mar uu gelayo taas halka weeye hadalka anigoo dul maraya oo uu qaybsan yahay waxaan kaliya ka hadlayaa waxa weeye dawladda federaalka ah oo ay xukumaan niman Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed si fiican u kala yaqaana marka ay yiraahdeen waxaanu la hadlaynaa Soomaali weyn baanu u wada hadlaynaa iyo Somaliland oo Khaatumo ay ka tageen Soomaali baa taa wax ka qaybinaysa kii dhimanayay oo loo dilayay oo u haraaday oo u gaajooday oo u halgamay maamulka Hargeysa runtii waxa weeye waxaad moodaa Soomaalidu inay ilowsan tahay ama cid kastaba haddaba joogtee in la ilowsan yahay inaan laga hadlin dhibka xaqiiqada ee jira ee laga hadlayo waxaanba sidaa u sii weyneyn ama taxgelin la siinayo beel kamida beelaha Soomaaliya waxa weeyaan haddii laga hadlayo xaqiiqda iyo dhibka jira marka ugu horeysa in laga hadlo bay ahayd dhibka ka socda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dhibka lagu hayo in laga hadlo oo dhibka meel la dhigo Soomaali iyo dawladaha ku mashquulsan arrimaha Soomaaliya iyo hay'adahaba kastaba haatee Khaatumo State oo kamid ah maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa lagu dhisay shir ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Taleex Siciid Nadaara Somalisat Nairobi